ninkii caayay nabigeena calayhi salaatu wasalaam 18 bilood oo xariga ayaa lagu xukumay. ninkii difaacay diinteena difaacayna rasuulka sallallahu alayhi wasallam sunnadiisa difaacayna ilaa ay hadda uu xiran yahay xabsi ayuu ku jiraa, asoo weliba dembi lagu waayay ayuu xabsi ku jiraa. Cabdimaalik Muuse Codon, halkan waxaan fariin ugu dirayaa walaalaheena reer Somaliland, ayaan fariin u dirayaa reer Hargeysa khaasatan, iyo culimada Soomaaliyeed ayaan fariin u dirayaa. marka hore waxaan leeyahay reer Somaliland, ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr badan ilaahay idin siiyo. maanta dulmigan dushiina lagu hayo ama diinteena lagu hayo, waxaan ogahay in badan oo ayaga ka mid ah inaysan raalli ku ahayn, balse laakiin dulmiga dadka geysana ay yihiin dadka madaxda u ah inay yihiin. ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayadiisa wuxuu leeyahay: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولا له يجيو إلهي سبحانه وتعالى وحليهاي وإذا أردنا أن نهلك قرية إلهي هدان دونبوري إنا نهلاقنو مقالو معناها ضدك كنو الوان اللي مقالو وعلولكية واحد ضدك سميه مقالو وحلو لجيدا ضدك كنو العيال ولجيدا إلهي هدان دونبوري إنا ضدك سان هلاقنو أمرناها مترفيها وفسقوا فيها. أمرناها علماء خلاف يجلين معناها هذه معناها علماء قارو كفا سرين dadkooda u madax ah, macnaha dadka u sharta badan ayaa madax ugu dhigaynaa. dadkooda ku ugu sharta badan ayaan madax ugu dhigaynaa. kadib markay dulmi sameeyaan ay ilaahay caasiyaan subxaanahu wa ta'aala ayaan cadaabaynaa ay ku fasireen. culimada qaarna waxay ku fasireen macnaha dadka ahlu sharta ah waxaan amraynaa daaca, kadib ayay daacadii waxay u bedelayaan macnaha inay ilaahay caasiyaan subxaanahu wa ta'aala, kadib ayaan halaagaynaa war ilaahay subxaanahu wa ta'aala. marka dadka madaxda ayaa mar walba dadka xukuma. waad aragteen qasasul anbiyaa, haddaad dib u sii raacdaan dadka ugu waaweyn magaaladaas boqoriinta ah ama mas-uuliyiinta xilka ka haya markay dulmi sameeyaan kadib ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala halaagaa. walaalaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay arrintaas ka kaca oo ka hadla oo ka banaanbax ayaan leeyahay. tan labaad, culimada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay khayr idin siiyo. culumooy, ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin xifdiyo, balse laakiin waxaan idinka codsanayaa inaad ka hadashaan oo arrintan. maxaa yeelay culimada ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu la hadlayo wuxuu yidhi: latubayyinunahu linnaasi walaa taktumuunahu. xaqa dadka waad u caddaynaysaan, kama qarinaysaan. insha allahu ta'aala